جمعة وناكسن أصحابي مالكستو أتوقتان وبرنامج كان يقول مانتو جمعة نديسو قد بني تاريخ دوا كوبيا صدقا بشا أكتوبر سنة كالباكون يشان يلاباتن قضبضا برنامج كان يدكوها يا أصحابي وحاكم ذا إذا مدى إسرائيل قوبيه أي كتشوغين غزة أو أي شيغين إناني هبينكي هو ينكرين عبسدا أي كقبان جوك حوغلي أو كدعي سدولك هوستيس waxayna sheegeen inay u malaynayaan ciidan fara badan oo xamaas ah in halka lagu soo gurayo oo la rabo hal mar in dukum daakum laga dhigo hadaba sheeko la yaab leh oo saakay soo baxday barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa lafa cusub oo yahuudi ku dhimatay Gaza ah oo shalay gelikii dambe ay dhiibeen xamaas duqaymo Israa'iil mar kale ay ka fulinayso goobo kamid ah Gaza وعشان كله برنامج كأن يدي كوجس وجود بالدورة دمان ورركي وجود بيجي جزاء يو حالات دوسرة أي تهاي وحي إسبدري شيء كذا وحي صعب بدن برنامج غيب تدبعتكم مغلي دوتان وذا دي مديدي يهودا يبوليسكي أو نكتة إسكساري أسكر دعوة عنتي كوكلة أو لصاقبتي دجال لا يابله أو كنعي مقالة قدس هذا ما محيس كويا. وقد سينو برنامج كنا وقول رئيسك يا جماعة إذن كوسو قد بيننا أنت كشرنا ورا عصب هذا يسوق قرنا سوى شوكتان كسر وهذا برنامج كنا يقول رئيس ما تو جماعة هذا برنامج كواحد إنه كبر لابينا إسرائيل أولي وضد قيمه يكفرون يسجزا وحايكون دعونيان وقتي وقبتي ترام إنه رمادي سيدا درادنا أي تهي إنه طلابك قادان حماس هذا ترام وقتي وقبتي محيهي واتي دوان وقبتي ترام إن أي سودي بان محابيسته هدي أي سودي بوايانا مركا طلابو لغا قادي دونه marka Israa'iil duqeymahan maxaa u wadaan markii la yiraahdo waxay leeyihiin waqtigii Trump uu qabtaa dhamaaday iyadoo saasoo ay tahay waliba maxaabiista wixii la soo helaba la siinay ay waxay leeyihiin waqtiga dhamaaday waa garaacayna marka qadar waxay sheegeen inay u baahan yihiin Mareykanku inuu mowqifkiisa cadeeyo damaanadii uu qaaday in nimanka kanu aanay jabinayn heshiiska hadda ay u muuqato Israa'iil waxay rabto inay sameynayso inaan de wax heshiis meesha yaalay damaanadii Mareykankuna ay ahayd been waxa telefoonka isku hadlay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka saacadii la soo dhaafay wala isbaashu runta la isu sheegay damaanada loo baahan yahay Qatar damaanadii aad sheegteen nimankan waxay rabaan iska sameynayaan mana la hadlaysaan marka maxaa heshiis meesha jira haddaba marka sheekadu way sii kululaanaysaa Israa'iilna waxay qiil ka dhiganaysaa lafahayni ma wada hayno waqtigii heshiiska way ka baxday Xamaas haddaba marka ardaydu soo wararkii ugu dambeeyay ciidamada Israa'iil ayaa saakay waxa ay duqeeyeen sida la leeyahay bartilmaameedyo ku yaala Khan Yunis iyo deegaanka la yiraahdo Madiinatu Gaza haddaba waxa la sheegay dabaabaadka ciidanka gumaystaha in ay markaa soo aadeen dhanka bari ee magaalada Gaza iyadoo la sheegay inay dhanka kale duqeymo dhinaca madaafiicda Israa'iil ay ku duqeysay bariga Khan Yunis kaasoo ku yaala koonfurta marinka Gaza marka way iska duqeynaysaa marka waxbay ku ridaysaa waxbay duqeynaysaa sababtu maxay tahay marka soo dhiibeen lafi waa haysataan wali saasoo ay tahay wixii la helana waa loo dhiibayaa ugu haddaba aanadii soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay Al Qassam waxay wareejisay laba kamid ah lafihii yahuudi ku dhimatay Gaza oo marka waxay ku wareejisay hay'adda ICRC shalay gelikii dambe shalay khamiista gelikii dambe laba lafahoodo meel ay ka soo hayeenayeen saasoo ay tahay Xamaas de ugu shaqadii iyo wixii lagu ballamay way qabanaysaa laakiin dadka iyaga guryo burburay iyo meelo ku wada dhintay dhamaatood oo Israa'iil ay ku duqeys
israa'iil marka duqaynteeda marmarsiiye ayay waxay uga dhigaysaa sheekadan ay uga dhigaysaa marka waxay leeyihiin dadku waa wax la yaab leh oo maaragtay marmarsiyada israa'iil sheeko la aqbali kara maaha arrinka ugu xisaab badan barnaamijkan aan ku soo qaadanayo wararka ugu xisaab badan waxay tahay israa'iil ciidankeeda gaza markay ka soo baxeen meelo ka mida gaze ku hareen waxaa lahahdaa saan horeyda kugu sheegay laynka jaalaha ay la baxeen alkhat alasfar la yihahdaa marka laynka jaalaha marka gaza ayay joogaan laynka jaalaha ah marka waxay eeyihiin hadda laynkii jaalaha maba joogi karnay leeyihiin askarti maxaa dhacay war habeenkii dhulkan waa ruxmaydheen saano ruxmaydheen saan taxta alard waxaa ku jiray dheenimar hubaysan meesha dhulgariir inuu dhacay camal waaya dheen marka dambe waxaa u malaynayna ay dheen annagii taagiyadeennaba inayna goosato baash aan nimankii intay wax noo diyaarsadaan dabin aan ku dhacnay leeyi marka saan xal maanay leey meeshaa ma taagnaa karnay leey nimankii habeenkii waxbaa ku dhacay dhulkii nala guurguurayay kuleey ma wax xag rabbaani ah ka socdaa oo xag rabbi ka socdaa ma wax kalaa lama yaqaano marka iyagu laakiin waxay leeyihiin dhulka hoostiisa wax noogu jiraan marka meeshaan khatul asfarka la leeyahay ma joogi karno xawaasaa kasoo buuxsamaysa dheh nimankaa marra idiin sheega cabsi meelay aadaan male haddaba markaan idin tuso sheekada la yaab kale aljaziira ay qorayso aljaziira waxay leedahay kooxo hubaysan ayaa waxay sheegtay israa'iil inay ku jiraan dhulka hoostiisa weliba gaar ahaan deegaanada gaza ee ay israa'iiliyiintu hadda joogaan ciidankooda telefishinka la yidhaahdo kanaal 12 ee israa'iil ay leedahay ayaa war la yaab leh qoray saaka marka wuxuu leeyahay kanaalka 12 isagoo soo xiganaya mas-uul ka tirsan ciidamada inay jiraan kooxo hubaysan oo dhulka hoostiisa ku jira deegaanada hoostaga ee ciidanka israa'iil halka ay joogaan ma ujeedaan marka waxay ku leeyihiin waxyaab laa meesha ka socdo nimanku fulaynimo waa la dhameeyaa ku yiri maasha fulaynimadu laftirkeedu meel xaday leedahay xadkii ugu dambeeya la joogaa nimankan waxay ku leeyihiin habeenkii ma la gaaray haa saasoo u ruxmaa dhulka markaasaa waxaan ka baqaynaa oo qof walba ku soo dhacaysa godkiia ku dhacdeen bes nimanka hoosay soo qodayaan marka taangiyadii iyo wixii o dhan dhulkaan geli rabnaay dheh marka waxay leeyihin marka ciidanku mas-uuliyiinta dowladdu dee arrinkaa macnagu ma u adkaysan karo inaan meeshaan ka baxno waa ay leeyihin xaggee aadaysaan meesha qulaaf gasa la yidhahdo qulaaf gasa waa gaza banaankeeda maba joogi karnaa dhan gasa korkeeda marka sheekada waalan oo xiisaa leh ayaa socota marka adinkuna fakari aragti waxaad ka qabtaan waa noo soo qori kartaan waayahay qadar xayeysiisa kadib qaybaha dambe ee barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa nimankii wadaada diimeedka ee xerowga aan u bixiyey ee yuhuudda ahaa iyo booliiskii ayaa nagta iska saaray waxa dhiig ka daadanayo waxa dhagaxaan la tuurayo booliisku waxay keeneen nimankii rabshadaha ka hortagay fardo wax walba la isu keen sheeko la yaab leh iyo waxa la isku hayo ayaan galaynaa xayeysiinta wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyey maanta oo jimcaha qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aynu maraynaa haddaba qaybtan marka waxaynu kaga hadlaynaa arrin cajiiba oo soo korortay oo la leeyahay nimankii xerow diimeedkii ama wadaadadii diintoodii yahuudda iyo nimankii waxaa iska raacaya booliiskii waxay yidhaahdeen qaar ka mid a wadaada xerowyada ayaa la rabay waqtigii laydiin qabtay xukuumaddu waa la gaaray waa inaad ciidanka kusoo biirtaan war ciidan aan ku biirayno male inta dhaheen calankii gubeen yahuudda waxay yidhahdeen waxaan maba aaminsanin wara annaga wadaadadii tawreedkaanay dheh markaa annaga nala soo aadaysaan markaa dadkiinaan calmaaniga kulaha oo yahuuddan meelaha socsocota oo meelaha laga keenay iyagu waxay aaminsan yihiin yahuudda ka timid bariga yurub iyo meelahan iyo afrika kuwa laga qaaday iyo inaysan yahuud saxa ahayn annagaa noo shaqaysaana leeyihin addoommadeeniyaa tihiin annaga noo shaqaysaan marka nimankii marka sideeba annaga askar u noqon karnaa idinkay annagaaba askar noo tihin annagu dee diintii iyo wixii dhanaa idiin ilaala markaasaa weel ay nimankii joogeen ayay weerareen booliiska
booliiskii iyagii marka waa la isfara saaray magaalada qudus qaybo dhan waxaa ka kacay boor dabka la qabadsiiyey meelihii qashinka ku jiray dhagaxaanta booliiska lala dhacay askaraa la dhaawacay saaki marka waxaa hadlaya hogaamiyihii mucaaradka ugu weynaa Israa'iil haddaba marka caladituso hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil ayaa cambaareeyay xukuumadda ka aamusnaanta ee ka aamusan tahay mudaharaadyada ka soconaya qudus hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ninkaleera ayaa sheegay mudaharaadyadu oo looga cararayo in ciidanka laga mid noqdo inay qabsadeen magaalada qudus ilaa xalay ayuu leeyahay ayay socdeen sheekadan waxaana uu sheegay in markaa ay ku tilmaamayaan kuwa mudaharaadka sameynaya cadow Israa'iil waxay gubeen calankii dawladda ayaa la gubay ayuu yiri dawladdu sababta ay uga aamusantahay maxay ka hadasho booliiska la dhaawacay hay marka sheekadaas marka iyadoo la socota halkaasay marka iyadoo ka buskays wadaadda diimeedkaas waa diiday askarta inay galaan waxay ku leeyihiin yaa loo geynaa qoragii alyaasiinka ee muqaawamadu wadatay falastiin meeshaas nagtaa la isaga saaray meeshaas ba u socdaan marka xaalku halkaas u mara barnaamijkan waa kii ugu horeeyay maanta jimcaadii alla wixii kala soo korna barnaamijyada dambe ayaad nagula socon doontaan like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka fakarkiina aragtidiina dhiibta inta aan markale barnaamijka lamida ku kulmayno asxaabay nabadgelyo